labadii aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya golaha shacabka iyo aqalka sare ayaguna isma hayaan haykalkii dawladnimada marka sidaas uu kala jooga arintaas waxay u sii xanuun badan tahay waxay tahay hoggaanka dadka inuu isku hayo hay'adaha dawladda inuu isku hayo horumariyo la rabay inuu yahay midka sababta u ah maanta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu inay kala taagnaadaan labada aqal ee golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay kala taagnaadaan Soomaalidu waxay ku maamahdaa ninku dilay har kuguma jiido 4 sano wax gabagaba si ah xilligii dawladdan la doortay ee xileedkeeda ah maalin maalmaha kamida doorashada sidaanay tahay sidaana la yeelaya dadaalkaana laga galaya Soomaaliya aan doorashadii sidaas maxay idin la tahay maxaan ugu habboon qabana qawaaniinteedii iyo hawsheeda waa sidaan maalinna ma ayan dhihin maanta oo ay doorashadii xilligii loogu talagalay bilowga ahayd oo baarlamaanka in la doorto ahayd ay 100 maalmood wax ka yar ay ka dhiman tahay wali lama garanayo jawaab looma hayo su'aalo badan oo doorashada la xiriira inay dhacayso waqtiga ay dhacayso nooca ay tahay cidda maamulaysa lama garanayo nasiib darro weyn oo ummadda Soomaaliyeed soo wajahday waay laakiin ummadda Soomaaliyeed culaysa taas ka badan iyo mashaakilada taas ka badan soo wajahay oo ay ka soo gudubtay aadan ugu kalsoonahay tan inay ka gudbayso hoggaanka dawladda maanta jira waxaan kula dardaarmayna ama ku dhiirigelinayna inay ifafaalaha suuban ee isdaba socda ee bariyahan soo dhacayay ee ayagu aanay mas'uulka ka ahayn in ay walba aanay ka gaabin inay taageeraan shalay qayb kamida baarlamaanka ayaa baaq jeedisay dadka Soomaaliyeed oo wada istaagay waa wada taageeray maanta dawladihii xubnaha ka ah dawladda federaalka ayaa dhuusa mareeb isugu tagay ku shirayo dawladda hoggaanka u ah inuu isugu yeero isu keeno isku hayo la'aantiis ayagu inta isdoonteen markay arkeen meesha xaal marayo ayay dhuusa mareeb isugu tageen waa bogaadinaynaa waa hambalyeynayna waa tallaabo bilow ah oo dhinac saxda loo qaaday aanan hubo haddii lagu sii dadaalay in ay guul weyn oo aad iyo aad u ballaaran ay ka imaan doonto waan ku bogaadinaynaa madaxda dawlad goboleedyada madaxweynayaashooda iyo maxaan ku raadayay dawladahoodu inay isugu tageen dhuusa mareeb oo ay bilaabeen madashaas ama gogoshaas ay ku aruureen kuna tashanayaan waxaan filayaa inay ka soo baxdo mid horseeda dadku inay tashadaan wada tashigu intaas ka sii ballaarto saamilayda siyaasadeed oo dhan oo ay ugu horeeyaan xisbiyada siyaasadda ay maxaan ku iraahdaa ka wada qayb galaan hoggaanka dalkana waxaan leenahay ha ka daahinina dawladdu federaalka ee Soomaaliya iyo hoggaankeedu inay ka waantoobaan aqliga u soo noqdo wixii ay sameyn jireen iyo wadadii ay sameyn jireen wada aan ahayn inay hadda cabiraan in loo baahan yahay waan soo sheegnay wixii hore khilaaf iyo kala qaybsanaana ka dhalatay shirkaas bilowday maanta oo Soomaalidu ay saa u soo wada eegaysa ee dhuusa mareeb ka socdo waxaan rajaynaynaa inaanay carqaladaynin oo aanay tashwiish ku furin oo aanay ka gaabin oo aanay ka daahin haddii ay intaa ka dhowrsan waayaan dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ama madashu ay u sheegaysaa cawaaqibka ka dhasho tallaabada dawladda dhexe ay Muqdisho ka qaado iyo go'aanada siyaasadeed ama dhaqanka siyaasadeed oo ay la yimaadaan mas'uuliyaddeeda ayaga u baa qaadayo cid kale oo la qaadayso la wadaagaysa male ummadda Soomaaliyeed horteeda ayaga mas'uuliyaddaas ku qaadayo wixii dhibaato ay xumaan ay ka yimaado iyo lugooyo ay ka yimaado Ilaahay hortiina ayaga ku qaadayo hadallada ay ku dhawaaqeen oo markii aad loo nuxur eego hoos loo eego wali aan cadayn laakiin kuwii ugu horeeyo ka soo baxay ah waxaan leenahay micnaaya sii fasira dadka u sheega wax aad ka wadaan cadeeya wax badan oo muxuu ahay aanan la garanayn dastuurka federaalka Soomaaliya
iyo sharciga doorashooyinka ee madaxweynuhu uu xigtay waxay qorayaan 4 sano waaye mandate-ka madaxweynaha iyo mandate-ka xilli xileedka madaxweynaha iyo xilli xileedka baarlamaanka 4 sano 4 sano waatan aan sheegayno 100 maalmood ka yar ee bilowgeeda ay ka dhiman tahay marka looguma mamarsiyoon karo dastuurku wuxuu qorayaa waxyaabo kale baarlamaankan waqtigiisa waa dhammaaday madaxweynahana waqtigiisa waa dhammaaday gabaabsi ku soo socdaa labadaba waqtigoodu waa gabaabsi ciddi bedeli lahayd baarlamaanka bedeli lahaa jidka ka wax asalkaana waa baarlamaanka in baarlamaan la helo baarlamaanku uu jiro kan uu jiro oo shaqeeyo ilaa xilligiisa maalinta ugu dambaysa laga gaarayo waa waxa anagu bariyahan aan isku dayaynay oo aan raadinaynay in labada aqal baarlamaanku isku yimaadaan ayagoo baarlamaankii ah ilaan hadda waa aqal iyo aqale ayagoo baarlamaanka inay wada shaqeeyaan waana meel fiican hawshaas maraysa mas'uuliyad weynaana ka muuqato hogaanka labada aqalba iyo rabitaan inay rabaan inay midoobaan marka waxaan leenahay ayaguna waa dhiirigelinaynaa in ay aqalkii labadii aqal isu soo noqdaan oo baarlamaankii oo howlihiisii dib u bilaabo waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda isagaa ummadda soomaaliyeed xilka u dhiibatay isagaa magaca ummadda soomaaliyeed golaha shacab baarlamaanka oo ummadda soomaaliyeed wakiilka ah isaga ayuu xilka u dhiibo doortay waana ilaaliyaha constitutionka sida ku qoran dastuurka ilaaliyaha dastuurka inuu isagu yahay ha ilaaliyaan leenahay dowladda guud ahaanna waxaan leenahay warkiina aad shalay sheegteen waa fiican yahay laakiin sii fasira wax ku sii dara su-aalaha aad garanaysaan jawaab weli loo hayn jawaab u yeela madaxweynayaasha dowlad goboleedyadana waxaan leeyahay ayaguna gogosha waa bilow fiican waana bilowdeen waddo saxaad bilowdeen ballaariya ha isku ekaynina haddii dowladda qaybaheeda kala duwan tahay ugu yeera hadday tahay saamileeda siyaasadeed oo kale xisbiyada ay ka mid yihiin ugu yeera bulshada rayidka ay ka mid tahay ugu yeera waxgaradka soomaaliyeed oo dhan ugu yeera si un looga tashada arrintaas oo arrinta doorashada arrin noocay doonto ha noqoto shardiga keliya ee doorashada xilligan haddii la soo gaaray oo waqtigan la joogo shardiga keliya ay leedahay waxaa waaye nooc laysla raba inay noqoto lagu heshiiyey inay noqoto laakiin mid cagaaran iyo mid madow iyo mid gaduudan oo qolo gaarahe ayada ay jeceshahay ama ay ka dhex aragto maslaxadeeda iyo awooddeeda iyo powerkeeda ma aha midda shaqayn doontaa isleeyahay waa midda laga wada tashado laysla aqbalo waa soo dhaweyneynaa waa bogaadigeynaa wada tashigaas gogashaas bilaabatay inay sii ballaarataan rajayneynaa guulo badanaan u rajayneynaa dowladdana mar kale waxaan u rajayneynaa iyaduna tubta toosan in ilaahay tusiyaan u rajayneynaa iyo hoggaankeedaba